Asalaamu calaykum asxaabay. Waxaan sameysanaynaa afar fudud oo haddii aad magaalada kusoo daahdid si aad u boobsiisatid oo wax yar ku dhimantaa nus saac ama 40 daqiiqo oo kale wax saacad ka yar. Insha Allah waxaan soo qaadanay suqaar hilibka aad u yaryaraynaa. Hilibka suqaarka markii aad loo yaryareeyo dhaqso bislaadaa. Marka insha Allah suqaarkaasaan sameysanaynaa iyo mulawax. Waa wax aad u fudud muddo yar aad ku sameyn kartaa insha Allah. Daawasho wacan. Hilibka saliida ku darsanaynaa. Kabacdina waa la daboolaa intuu soo huurayana insha Allah qudaarta jaranaynaa. Kabacdina mulawaxa qasanaynaa. Ku darsanaynaa 2 xabo basal iyo xabad kaarota iyo baradho 2 xabo baradho. Qudaartaas oo dhaqanaya waa soo dhaqday. Marka waa jarjareynaa insha Allah. Basal cad iyo basal guduudan labadaba waa ku daraaya. Basasha badan cuntada waxay ka dhigtaa suqaarka caraf udgoon macaan. Dhadhan fiican u yeelaysaa. Kaarotadana sidoo kale. Kaarotada way yara adag tahay markaa si yar loo jarjaro waaye markasta. Haddaad rabtid inay dhaqso ku bislaato waqti badan qaadanin. Hilibka ka dheecaan u dhalay. Wuu huurayaa. Basasha iyo kaarotada ku darsanaynaa. Haddana daboolka dhakab. Hadda mulawaxa qasanaynaa 2 xabo ukuna iyo waxaa ku darsanaynaa bakeeriga haafkiisa sokora iyo 2 koob caano iyo cusbo nus qaando iyo 2 koob bur ah insha Allah. Waa soo diyaarsanay. Basashii iyo isku shiilmeen hilibkii. Kadib waxaan ku darsanaynaa baradho
halkan baaquligan waxaa iigu jira xawaash iyo waxaa iigu jira maraq digaag. Marka biyo ku darsaneynaa hadda inta maaragtay malawaxa la dubaayo wuu bislaanayaa daboolkiisa lagu dhajinaa. Very easy waaye, aad u fudud yahay. malawaxa birta waa saaranay hadda dubeynaa insha Allah dhowr xabaa dubeynaa markaas ayaan tusayaa. malawaxa markii caano lagu qaso qurux u noqonayaa guduud masha Allah, waxaa aad u qurux badan. marka waa kana anaga